علينا سنة بدأ أسبوع كان نوصور تجليي إن أسبوع معنا أنا كنا بقبنا عافيمات قبنا أيسوي درسنا وحي أدين كل هيسين أنا كنا هنا إن شاء الله وحرجينا إنا وحكي لفايدنا وعيقلين تانو نقطة مثل قياسة أدين كانوا وحبات خاني وحرجينا إنا وحين كفايدنا أنا كانوا وحنا كفايدين إن شاء الله إذن كإلهي مركا بعد سلام كدي هذا سكين برنا دمانتين مركا هراء مجاعي وحوي نبي عبد علي وكان حلا مختار ليبان إبراهيم خليف أحمد يريا وبح محمد راجع حسين علي حسن دمانتين إن شاء الله وحيننا هاي أرضي جامعات أهمية وجوهنا أن أصابحنا يعني كوي معنا وحياتها هاي إننا نسبراروجينه wax isku sheegno waxaan ku aansanay maadaama aan dhalinyarada dalka ee wax baratay wixii aan baranay inay saanaka kaliya nagu ekaanay inaan la soo baxno dadka walaalaheena gaarsiino ee u saamixweeday inay tagaan goobihi waxbarashada wax walba qofka ilaahay qadaro inuu wax barto ma ahan ina macnaha uga harteen sabab idinka aa keenteen laakiin qofka waa inuu ilaahay u qadaro ee tagaan saamihiisa meesha uu wixii bartaa marka waxaa ku aansanay anaka intaan indhaarna inaan la imaano idinkana waxaan ka faa'iidno waxa inii wadna wax gooni oo macnaha waxna aqoonin maahan laakiin waa inta taqaaneen oo baraarujin un baan qabanaa anaka waxaan go'aansanay intii inaan ku baraarujino in la wadaagno waa ogtihiin waxaa jira xilliyada kuleelaha hadda bishaan aan ku jirno kaleeto shubana dilaaco xanuuna sidee looga hortagi karaa sideen iskaga difaaci karnaa inaan isku baraarujino oo isku sheegno kabacdina aan dhaqan gelino baraarujintaas adinkuna qaadatiin anakuna qaadano nafteena aan ku dabaqno hadalka ay nii sheegaynaa idinka wuxuu noo yahay anaka laftirkaana inaan isku sheegayno waayo waan dhaqan gelinaynaa markaan isxasuusino oon sheegno aan isku sheegno dhammaanteen waa ogtiin markay kulaalaha bilaawdaan waxaa dhaco cudurro ee daacuunka kaleeto haddii ahaa lahayd nadaafadda xaggeeda haddii ahaa lahayd nafaqadii xagga nadaafadda markaa ka fiirino kuleelaa bilowday xilli kuleelaa lagu jiraa maxaa leeyahay shubana imaanayo inuga marka inta kuma waxaa looga baahan yahay in laga nidaamiyo laga qaado laakiin haddii looga leexdo taqsigii ay imaanayo wuxuu u geyn karaa mid kale oo ka fog ama kiiba meel ka fog ka soo qaadi karaa intuu keena sideen ku samayn karnaa ka hortag waxaa jirta oraahda heeso daaweynta waxaa ka muhiimsan ka hortagka intii wax la daaweyn lahaa waxaa ka muhiimsan intaan la daaweynin oo cudurkiiba imaanin in ka hortag la sameeyo marka ahmiyadeena waxay tahay oo iskala hadli doonaa hadduu ilaahay qadaro sideen uga hortagi lahayn sideen hadday imaadaan ula tacaamuli lahayn marka waa mahadsantihiin waqtigiina qaaliga oo aadna siisaan iyo sida wanaagsan oo noo dhagaysanaysiin waxaan rajay doonaa wixii talaa oo noo soo gudbisiin inaan inka qaado doono idanka ilaahay idinkana waxaan rajaynaynaa waxaan inii soo gudbino inta muhiim ah inaad ka qaadatiin naf iyo shaydaana nala xiriiro bini'aadana qalada naga dhici karo inaan qaladkana loo qabanay hadoo qalad naga dhaco intaan hadleeno wanaaga laga fiiriyo waxa inii soo gudbin intii karaankan ilaahna waafajiyo qaado doontiin waana mahadsantihiin sida wanaagsan oo noo dhagaysanaysiin markaana waxaa ku soo dhaweynaa walaalkay mukhtaar liibaan ibraahim oo nala socodsiin doona insha allah cashirada welcome liibaan هذا ما عصنتاي نفيسو وإن سلام يا دمان مركل أي مركلة سيدو قروح بدن أبنو سو أجيبتين وأنا اللي كذا محللين هنا ما أنت هنا هل كان يدوك صوب وقانو أبنو سو أجيبتان أو هذا هل كان أوتي مالان runtii muhiimadu ma ahan muhiimadeena waxay tahay inaan idinka wacyi gelino nadaafada sidoo kale aan idin sheegno waxyaabaha markaasi nafaqo darada ilmaha soo wajahdo anagoo talooyin badan idin siin doono isla markaana wixii idinka xataa tala noo soo jeedisaan aan qaadan doono waan rajaynaynaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo inaan waxyaabo badan idinka caawin doono insha allah waa mahadsantihiin mar kale maamooyinkiina kaamkan magaciisa waa sida lagu sheegay salaama 2 ama barwaaqo labada magac uu leeyahay waxaan arkaa MCH oo furnaan jiray laakiin hadda uusan shaqeynin waa hor uu shaqeyn jiray waxaan ku dadaali doonaa ama diiradda aan saari doonaa insha Allah haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo inaan dib u howlgelin doono MCH kan uu dib u shaqeyn doono insha Allah maxaa yeelay maamooyinkiina waxa u baahan tihiin nadaafad waxa u baahan tihiin daryeel caafimaad sidoo kale caruurta yaryar waxay u baahan tahay daryeel nafaqo waxaa jiro talaal oo markaasi muhiim u ah dhammaan caruurta iyo hooyooyinkaba waxaa loo baahan yahay hooyadu markay uurka leedahay inay mar walba ku xirnaato MCH-ka
ee ku xirnaato mar walba ee booqato bil walba si joogto ah u booqato ilaa ay ka dhalayso xataa hooyada markay dhalayso waxaa loo baahan yahay inay ku dhasho goob caafimaad inay ku dhasho si markaas ay u hesho daryeel caafimaad tayo leh ilmaha waxaa loo baahan yahay sidoo kale inaad soo talaashaan bil walba inaad talaal geysaan sidoo kale waxaa idinkaga baahan yahay marka ilmaha inaad ku dadaashaan naas nuujintu ilmaha door fiican ay ka qaadanaysaa koritaankooda haddii naas nuujin baraxtiran cunuga la siiyo waxaa mar walba cunugaasi noqonaya cunug markaas koritaan fiican yeesho cunug tayo fiican yeesho cunuga difaaca jirkiisa uu fiicnaanaa difaacu yeelanaa cunuga markaas waxaa uu awood u yeelanaya inuu iska difaaco cudurrada soo weerari kara markaas marka sidoo kale nadaafadu waa muhiim waxaan leeyahay nadaafadu waa iimaanka barkiisa sidaa wad ogtiin waxaan idinkaga baahan yahay ama idinku wacyigelinaynaa qof walba markii musqul la isticmaalo marka musqusha ka soo baxayd oo kale inaad gacmaha iska dhaqdo inaad gacmaha saabuun ama dambas iskaga dhaqi karto qof walba taas waa waajib saaran inuu nadaafadu uu ku dadaalo sidoo kale cuntadu waxaa loo baahan yahay caruurta waxay u baahan yihiin cunto caafimaad leh sida dadka waaweyn hase yeeshee waa inaad u qiyaastaa oo aad siisaa in da'doodu u qalanta waxaa loo baahan yahay cunuga da'diisa iyo cuntada aad siinaysa inay isku qalmaan ama ay isla ahaadaan balance ay ahaadaan waxaa marka cunuga markuu yar yahay haddaad siisid ka waran cunto waaweyn aad dadka waaweyn aad siinaysa haddaad siisid cunugan uu da'diisa aad u yartahay cunuga hal sano ama intaas uu jiro maya waxaa loo baahan marka cunuga da'da uu jiro cuntada aad siinaysa inay isla ahaadaan ama ay isku balance garaysnaadaan sidoo kale caruurta uu yaree waxyaabaha sokorta ku badan tahay sida cabitaanada iyo macaanka maxaa idin baahan yahay caruurta inaad ka yareysaan ama aadan ku badin cabitaanka sokorta badan leh ama cuntooyinka sokorta leh sidoo kale waxaa idinkaga baahan yahay محمد راجع ما شاء الله رجينا يمكن إنا مقاعدين ماشي في السين تربرتك بعدي وفي سؤالها ولا قبله اسمي دينا إلى مرة نعم حسن اسمعنا ليرا بابا نعم حسن اسمعنا آمين أبي الآمن حسن آدم محمود أنا وحلا يرى عبد حدك آمين حسن اسمعنا آمين أبي الآمن برشة وناكسن إن شاء الله برشة بعد أنا كده حين تقول ما نسأل نيشك نارد جامعة عليها إن هذا كل علينا ما قبل حلية كل الكلام هذين كل فينا كل رجلسين وادري ما ينا رقم سوما درس أنا درس أنت وحان سمي ماشي وحريرس وحان أدور أنا ماشي عم حياتي حوجا وحامل سأين إسبس بس كيلوية سيد بريها كذا سيد مالها كام كم كيلو بريها كل إسبس بس كيلوية هاي نظافة نقف بقف وقريحة صحوة نظافة نوع إيمان كبرتيس والله هدانا أنا كيس كالميسانين أنا كيس قرب قوانين وحلو هجاجا يوح شقينا يا مالا هدي نظافة باسكي كبحدنا عافيمادنا وكباية ما دقدق يوم إلهي وحفص الدجاج بدل خير نظافة وحلو إيمان كبرتيس واي وعالدا أنتو قشن كوجرو وعذر كوجرو حق نلش قروح ده عداته بالعدة ده marka waxa rajeeyna xagga nadaafada inuu ku dadaalo hooyooyinka aad isku sheegtiin wixii waa wada dhaqan laakiin dibka wuxuu jiro wuxuu yiraahdo kuma dhaqano isku mana baraarujin marka waxa rajeeyna in idinka dhexdiisa isku sheegtiin isku baraarujin maadaama aad maamada kaamka madaxda ka ah waa laga qaadana sinasteexa ku jirto oo tartiib nabiga kaleey salaatu salaam ka diinta gaarsiinayo kuma oosan qaylin jirin xoog ugu sheegi jirin laakiin sinasteexa ugu sheegi oo deganaane marka maamooyin kaamka oo madaxda u tahay inay si deganaan ugu sheegto waxay tiraahdo walaalayaal xilli kuleelaha la galay si ilmeena uga maarmaan cuntada koor ilmaha aan gacmaha ka dhaqano musqulaha koor aan dhaqano maamooyinka marka ilmaha tuujiga ka dhaqaan masaasada dhibaato badan ay leedahay hooyada ka maarmi karin masaasada nadaafadeeda ku dadaasho oo isgarab qabatiin oo si garab istaagteen saanaka ahaanka arday ahaan waxaan go'aansanay in la dhaho dawladda horta markii la dadka waxa ku soo dhacda madaxda laakiin dawladda sida saxda waa shacabka waxayna shacabka dawlad ma dhismayso haddii shacabkiisu soo hagaajiyaan madaxduna taga yar siiso adduunka dhan wuu noo hagaagi lahaa mafahanteen marka annagu waxaan ku talagalnay inaan dadkeena si tabarucaad ah
intii haddaan iskala fadhiisano dhahna maxaan qarash ku helaynaa waxay noo soo kordhinaysaa maaha laakiin haddaan inta dhaqaaqno dadkii ula tagno annaguna ajaraan ka helaynaa ayankuna ajaray ka helayaan halka kelimo wanaag oo dhaqan gasho ayankuna ay qof kale sii gaarsiiyaan ayankuna ajaray ku leeyihiin annaguna ajaraa ku leeyihiin idanka ilaahay wixii tabarteenaana kaa sameyn waxaa dhici karta qof tabaalaysan inuu kaamka joogo qof xaalad caafimaad degdeg inuu u baahdo meeshii aan la xiriiri karno wixii aan ka qayb qaadan karno meesha hore waxaan ugula sheegay inuu MCH ka shaqay jiray hadda uu xiran yahay qaabkii lagu soo celin lahaa haddii aan nagala shaqaysiin haddii aananka in kala shaqeyno haddii suurtagal noqoto inoo shaqeeyo waa dadaalaynaa inta ilaahay nala gaarsiiyo inta dhimanna waxaan rajeeyaa walaalahayga dhammaystiri doona waxba hadalka ay kusii tirax tegi insha allah waxaan ka rajeeynaa gacmo furan anakana weji furan iyo gacmo furan aan kugu imaan doonaa maasha allah khayr badan waa mahadsantahay Nafiso waa hadal fiican inoo sheegtay waxyaabo markaas na anfici karo oo aan wada shaqeyn karno inoo sheegtay marka waxaan rabaa inaan xoogaa wax idinka weydiiyo oo yacni comments aad ka bixisaan halkan baahiyaha ka jira sidoo kale muhiimsan yihiin MCH-kan uu shaqeyn jiray sababta loo xiray iyo caqabadaha markaas keentay in la xiro marka waxaan rabnaa waxyaabahaas inaan idin weydiiyo adigoo ku bilaabaya magacaaga ka waran bal baahida meeshaan ka jirto maxay tahay aan baahida markaas aad jeclaanaydeen in idinka daweeyo wallaahi daryeel la-aan waa isjirtaanoo caafimaadka meesha ka dhacdo waxbarasho male wax kaniina meel loo doonta male hadda gabartii xaamalo oo maadaama wax fool ay qabato meel loogu ordo isgaarsiin hataa cariiriya ku jirtaa nin kastana saasyaa ilaaha og yaa magaalada maanta dhan waa isku xirxirantaa wadooyinka dhan meel loo kala ordo male maaragtay xabadkaas barastamoolaaba muhiim ah wax dhanba horta yaa baahida koowaad wax waaye caafimaad darada waxbarasho la-aan biyo iyo waxaasna ilaahan u qabnaa biyo horta maasha allah wax la cunana allah hay wax la cuno waxaa ka miisan caafimaadkaas dadka kaamkaan degan guud ahaan imise qoys waa waxay dhaleen 300 imisay waa intii guurta horta xisaab maba ku jirto marka lisla deganaa dad amaaleed madax waa ku xanuunaya dadka hadda waxay leeyihiin dhaaf waxay gelin lahaa wax kaloo hataa kaniini waa hataa wax badan ma aha wax saas ma adduunyadan waxay gelintaa ugu wareegaysa sheegitaankaas dhabarkii wax maskaxdaada ku jiro mar maskax walaalkaada ay ku jirtaa wax maankaada oo ku jirno kaa maqanaa adiga luutusa ad ilaahayna asku waxyeesho dadka badaada waxay leeyihiin waxaasta wax ma ahe wax saas ma ahe naga dhaaf ya khayr dadka hadda inta waxaa loo xiray kaniini lay wadaane ii sheekaada ilmaha waxaataa naas nuujun waxaataa ma wadaane malmalaatadoo hataa ilmaha manoosiyooyin caqabad oo xaafadda xaggeeda ka jirto iyo la shaqayntii dadkii u baaba'ay mise ayanka sii wadi waayo ayanka u sii maya iyagaa sii wadi waaya iyaga xaggooday ka dhaadhac maahane annaga xaggeenna maya ee iyaga xaggooday macnaha ka go'do ka soo dhammaaday taymkiya u dhammaaday hadda marka ma jiraan kaamka wax faa'iido ah oo joogo oo imaadaan oo hay'ado kaamka oo haddii dhalinyaro ahaan anaga ku shaqeyno daawadii iyo waxaas in ka caawina hay'ado ma joogo kaamka maya wax hay'ado ma joogo maya kuwaas oo macnaha waxa weeye hay-adaas oo biyahaas haddii ilaahay kuu rooyahay macnaha oo dadka siida maahane oo seef jildana maahane wax kale oo haddii ilaahay kuu rooyahay waxyaalaha okay seef marka naadinka guddigina daarid la xiriirtiin mise dad kale in kaga sareeyaa jiro in la xiriiro dad nooga sareeyaa jira dadkaas la xiriiro okay dhanka waxbarashada ka warma dhanka waxbarashada caruurta wax ma bartaan hadda halkeesa ka helaan waxbarasho quraanka meelahaas qofban ninba meeshu isiiraa allayle ninkaana wax kaaga baranaya quraanka meelahaas wadaaga meesha meel xiriir iyo xataa ku dhex jira waxa weeye waxbarasho kalena maba lahaba meel haddii ilaahay kuu roon yahay la aado hata waaba iska yartahaba waayo hadeer haddii waxa weeye cunuga ardayga haddaad istiraahday tabeelahaas oo kale meel barfad ku yaalla ha soo dhigto haddaa istiraah
meeluu maraba male wadadiibaa meel kasta dhagaxa yaala marka waxyaalaha waxa weeye hadda cabdibaada iska jirtaba oo xag rabbi ka jirta marka waxyaalaha oo macnaha bini'aadanka nolosha aas-aasiga u ah kulley way fara badan yihiin hadda macnaha waxa weeye biyahaas unbaa dadku ka ay haddii ilaahay kuu rooyahay ka dhima waaye waxa weeye laakiin waxyaalaha kale wax meeshaas xooga jidkana waa u dhowdahay qofka kaaran qoraxdu hadday ugu dhacdo xamaal u aado baabuurkaasuu soo raacaya tuug ka beqi maayo 8 saac habeenimo hadday meeshaas moota keento markuu ka soo dega laamiga gurigiisuu gelaya waxyaalaha noocaasa macnaha lagu eexsanaya maahane iyo biyahaas lacag la-aanta waxa weeye marka laakiin waxyaalaha kale oo nolosha aas-aasiga u ah amba hunguri ha noqoto amba waxbarasho ha noqoto caafimaad ha noqoto midna kuma hayaan meesha waxaan kala weydiinaynaa xaruntan hadda haddii la yidhahdo hal furto oo dhalinyaro ahaan anakaan dhahnoo furanayna micnaha ma jiraan dad markaas hor istaagayaan oo la dhahayaan la furi ma jiraan mase qof walbo inuu yimaado u madax banaanta waxbaa la iska weydiinaa taas waxa weeye amba waa fura kartiinaa laydiin helaa amba ma fura kartiinaa laydiin helaa taas waxa weye madaxa saraan wacayna waxaan u malaynaa ma furi kartiin inayan imaan doonin insha allah bilkariim ha lagu shaqeeya inay timaadaan u malaya haddii ilaahay idmo anakaa dib isugu laabanayna anakaa soo fadhi kusoo sheekaysanayno haye haddii anaka naga suurta gashay inaan ku shaqayn karno anakaa marka sindheena noo soo weydiiye insha allah anakana waa isku laabanaynaa waa soo dashanaynaa hadda dadaa xataa naga maqan waa idin soo xariirinaa xasan alla markiisa haysanaa idinka ilaahay إن شاء الله ربط إلهي أكسياله هي إن شاء الله وما سنتين سؤال دواد هذا وحوي نقد واحد كنا قحوتي إسكت جانا هذي لا يكون ربيع خبو يوحبا إذا ما أنا شغلنا لا هلا يا أنا كنت حنكون فرح سنة سيدا نوصل ويسير أدي أدو فرح سنة أنت سمع قيمة إن شاء الله كل وحبا نجمع الله يعني إلهي إدمه wax walbana alla xaggiisa ayay ka ahaadaan la iskama haddii ilaahay kuu rooyahay qof walba wuxuu rabo iskama subsan karo waa in ilaahay xaggiisa ay shayga ilaahay uu raalli ka noqdaa xadiis saxiixa addoonkayga daniga oo iga daniya ayuu iga helaa marka haddii wanaag aa danayno insha allah wanaaga gaaraya insha allah saasay noo ahaane هي غير بدل انت حقي او صومالي اخر رواسي كرتي ان شاء الله خلاص بدس وحبا